السلام عليكم خير على نقد أخيارتا waxaa yara dhacay cilad yar ayaa dhacday oo mikrofoonka ayaa iga xirnay soo dhawaada mar kale Kabro Academy magaceyguna waa Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji maamulaha wax Kabro Academy hadda waa la maqlaa filaya haddaad maqashaan fadlan comment iyo soo wadaaga soo qora comment haddaad maqashaan good marka wax Kabro Academy waxaa halku dhig way smartly educating people waa madal ama application ay dadku ka bartaan luqadaha Englishka iyo maadooyin kale anagoo isticmaalayno teknolojiyadda tii ugu dambeysay haddii aad horey u garanaysay waa ina garanaysaa oo wax Kabro Academy sharaxaad markaasi kaga baahnaan doono laakiin in badan oo idinka mid ah waa nagu cusub tihiin waa markii ugu horeysay aan ugu soo biirtaan marka waxaan jeclaan lahayn marka inaan marka hore horta aan dhiirigelin yar u sameyno qofka ardada doonayso inay xal u arag gaarto barashada luqadda Englishka iyo talooyinna laga siiyo qaabka ugu habboon ee wax ku baran lahaayeen kadibna aan sharaxaad yar oo kooban aan ka bixino wax Kabro Academy iyo sida ugu habboon ee aad uga faa'iideysan kartid kulankan waa inoo bilaabanayaa welcome mar kale soo dhawaada welcome waxaad nagu soo dhawaanaysaa kulan loo diyaarshay inuu adiga ku xigo it's all about you adiga ayaa lagugu talagalay kulankan afaanteena filaya so are you guys ready tell me yes are you guys ready shall we start good mashallah emojis ayaan arkaa qaybta commentiga waad kusoo qori karaysaan I want this session to be uninteractive as we can make it why not commentiga aad igala soo falgashaan si aan u ogaado dad bini'aadane oo dhegeysanaya in aan hadlayo marka waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad multitaskinga joojisaan aad dhegeysataan insha Allah waxaa loo diyaarshan waxa weeyaan in aan dhiirigelin fiican talooyin fiican way aragnimo badan ayaan kusoo siyaadin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo marka inaad attention fiican bixisaan waa shardi weeyaan ama waa lagama maarmaan weeyaan waxaad meesha u imaaday halkaaga saacad u soo horto weeyaan inaad wax faa'iidid marka waqtina inaad bixiso waxna aadan faa'iidin wax micno soo kordhinayso marka waa inoo bilaabanayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo kulankana duubis ayaa ku socoto waa la duubayaa marka sidaas ogaada inkastoo aanan kamerada furi karin oo aan lagu arki karin codkaagana ma furi kartid marka aniga u baan jeeda iyo shaashadeedana waa loo jeedaa fasaanka ajandaha kulanka aan u gudubno marka hore kulanka waxa weeyaan marka hore waxaan ka hadli doonaa adiga kaalinta laga leeyahay maxay tahay kaalinta aad leedahay maxay tahay ileen luqadda cidda rabto inay barato waa adiga so kaalintaadu maxay tahay ina marka hore aan waqti fiican gelino weeyaan kadibna annaga kaalinteenu maxay noqonaysaa asal wax Kabro Academy ahaan kaalinteenu maxay noqonaysaa labadaasi ajenda markaan ka gudubno waxaan u gudbi doonaa a huge offer ama yabo aad iyo aad u weyn ayaan bixin doonaa oo intaad filaysa ka badan marka waxaan rajeynaynaa inaad yabahaasina ka faa'iidaysan doontid oo aad u joogi doontid hadduu ilaahay ka raali noqdo waa mugdi waan dareemayaa habeen weeyaan nalka kor ayuu gashanaya marka waa iska dulqaata haddii uu muuqaalkii uu mugdi yahay marka kamerada waan keeni doonaa marka saas ogaada so waxaan kusoo gabagabayn doonaa Q&A haddii waqtigu inoo saamaxo inaan su'aalihiina intii aan ka jawaabi karo aan ka jawaabo laakiin haddii aad si dhow ii dhegeysataan waxaan filayaa su'aalo badan oo hadda maskaxdiina ka buuxayo inaan idinkaga jawaabi doono marka fadlan si dhow ii dhegeysta oo ilaahay ka raali alright aan u gudubno marka ajandaha qaybtiisa ugu horeeya su-aashani waxaan rabaa inaan horta marka hore isla fiirino do you want it or do you need it luqadda inaad barato ma doonaysaa mise waad u baahan tahay do you want it or do you need it farqi weyn ayaa u dhexeeya
Yes, I need it. Absolutely good. Farqi weyn ayaa u dhexeeya ereygaani want iyo need. Want waxaa loo isticmaalaa wax haddii aad heshana wanaagsan yihiin, haddii aad weysane aan waxba kaala maqnayn, soo maha aan waxba kaala maqnayn. Laakiin need waxaa la dhahaa wax essential oo lagama maarmaan ku ah ayaa need la dhahaa. Sida you need food, you need water. Ma fahanteen? Waxyaabaha essentialka marka aad u baahan tahay oo kale. Marka rabitaankaaga inta uu la eg yahay ayuuna la ekaan doonaa guushaada intay la ekaanayso. Ma fahanteen aan filayaa? Rabitaankaaga intuu la eg yahay ayay guushaaduna inaad guul gaartid ama aad guulaysatid la ekaan doonto. So marka waxaa u baahan tahay waxa la dhaho burning desire. Rabitaan aad u xooggan ayaad u baahan tahay. Rabitaan aad iyo aad u xooggan ayaad u baahan tahay si aad waxa aad hiigsanayso gaarto. So burning desire equals success. Inaad u baahan tahay rabitaan xoog leh ugu jiro oo aad hurdadii aad kala seexan la'dahay, markaasi waxa weeyaan way fududaanaysaa inaad xalka gaarto. Maxaa yeelay awooddii iyo capacity-gii aad u baahneed si aad u xalliso problem ku haysto waad haysataa. oo keliya wax kaa maqan waxa weeyaan rabitaan inta leeg ayaa kugu jira, rabitaanka ayaa kaa maqan. Waa fahanteen aan filaya. So taas waa qodobka koowaad weeyaan. Waxaan filayaa in emailo soo dhaweyn aan idiin soo dirnay. Welcome emails ayaa dhammaantiin idiin soo dirnay. Waxaan filayaa inaan qaar badan oo ka mid ah ay idiin soo gaareen. Arday badan way ka soo jawaabeen. Ardayda qaarna weli kamaysan soo jawaabin. Waxaan isweydiinay caqabada kugu weyn ee luqadda Ingiriiska ka haysato waa halkee? Ma speaking ba, ma grammar ba, ma listening ba, ma reading ba, ma writing ba? Mar kale ayaan rabaa inaan su-aashaasi idinku celiyo. qaybta commentiga ku soo qor caqabada kugu weyn. Of course caqabado badan way ku haysan karaan, laakiin midda kugu weyn waa tee midda kugu culus oo aad leedahay haddii aad xal ka gaarto waad guulaysatay. fadlan qaybta commentiga ku soo qora. dhowr qofood ayaan rabaa inay ku soo qorto. Speaking. Good. Speaking waxa weeyaan waa caqabada ugu weyn ama baahida ugu weyn ee luqadda Ingiriiska dadku ay u qabaan. waa midda loogu jecel yahay. fahanteen? waa midda loogu jecel yahay. waana midda qofka tusinayso aqoontiisa ama ka saacidayso inuu soo bandhigo. laakiin problemka jira wuxuu yahay why oo speakingka u yahay caqabada ugu weyn. maxay maadooyinka kuwa kale caqabada kale u noqon waayeen? maxay u noqon waayeen? sababta ay u noqon waayeen ma garanaysaa? markaad luqadda baranaysid skills kala duwan ayaad baranaysaa, soo maha? baranaysaa reading waa skill ka mida luqadda. readingka waa skill ka mid ah. writingki waa skill ka mid ah. grammarka waa skill. speakingkina waa skill weeyaan. marka why markay maadooyinka kale ay fudud yihiin in la barto balse speakingka ugu adag yahay? sababtu waxa weeyaan markaad luqadda baranayso laba qaab ayaa loo bartaa. waxaa jirto passive learning iyo active learning ayaa jiro. kuwa kale grammarka oo kale, reading oo kale, writing oo kale, writingka markii laga reebo inta kale, laakiin listening oo kale markii lagu daro, you can learn them passively. qaab passively waad ku baran karaysaa. qaab aad effort badan adigoon bixinin ayaad baran karaysaa. grammarka oo kale haddii lagu sharxo waad fahmi karaysaa. listening oo kale haddii aad dhegeysiga badiso wuu ku fududaanaya, waa fahmi karaysaa. reading oo kale haddii aad yara aqriso wuu ku fududaan. laakiin speakingku muxuu u baahan yahay? speakingku kaama yeelayo wax la dhaho passive learning. wuxuu rabiyaa wax la dhaho active learning ayuu rabiyaa. waxa waaye wuxuu kaa rabiyaa inaad
effort bixiso ayuu kaa rabaya inaad uncomfortable situation aad gasho ayuu kaa rabaya comfort zonekaaga inaad kasoo baxda ayuu kaa rabaya readingka oo kale adigoon cidna ku maqlaynin waad akhrisan karaysaa listeningka ayadoo cidna ku maqlaynin waad akhrisan karaysaa grammarkii waad fahmi karaysaa laakiin speakingku waxaa laga rabaa inaad afki kala furto somaha oo aad hadasho markaad afka kala furto waxaad dareemaysaa in uu qaladaadkaaga baad arkaysaa ciladahaada ayaa arkaysaa bini aadamkuna sidiisa banaanba naftiisu waxay ku dadaashaa in oo safetygiisa ku jiro mar walba oo safe survival ayay naftaada kugu dadaalaysaa kugu caawinaysaa iyo waxaa la dhaho inay effortka ama energyga kuu dhaqaaliso ayay naftaada ku dadaalaysaa wax walbo effortka kaa bixin effort lagu siyaadina ama effort keenayo inay geliso ama energy inay geliso keenayo way kaa madadaalinaysaa fahanteena kale wax walbo halis naftaada gelinayo oo threat ugu dhexda waxay isku dayaysaa inay kaa badbaadiso so sababta speaking uu yahay caqabada ugu weyn waxa weeyaan qofku wuxuu ku qasban yahay inuu comfort zone ka soo baxo uu hadlo ka qaldamaan lagu qasbo ayuu halis ugu jiraa ta marka waxay keenaysaa qofku inuu wax walbo cudurdaar walba ay naftu ay siiso oo la baaqso anaga hadda kulama life ayaan ardaydan u qabanaa oo speaking practice-ka laba jeer ayaan life la qabtaa ardaydeena dadka diiwaan gashan u qabanaa nambarka ardayda diiwaan gashan iyo nambarka soo xaadirto life-ka soo xaadirto aad bay u kala duwan yihiin farq weyn ayaa kala dhexeeya haddana mar walba ardayda nagu soo biiraysa waxa weydiinaa caqabada ugu weyn waa maxay speaking ayay dhahaan why man micnaheedu miya inaysan ardaydu doonayn inay speaking iska xaliyaan of course way doonayaan inay xaliyaan laakiin waxay ka cabsanayaan ama ay ka cudur daaranayaan inuu qaladaad uu ka dhaco ayay ka cudur daaranayaan nafta ay u cudur daarayso asigoo markaasi excuse naftu ay siisay aqbalay waad mashquulsan tahay xilliga life la soo gali ma soo geli karaysid weli diyaar matid iyo waxyaaba fara badan ayay nafta kaaga sheekeynaysaa fahanteen marka caqabada kugu haysato haddii speakingku ay tahay ama waxay doontaba ha naqatee su-aasha imaanaysa waxay tahay what actions have you taken actions ama ficilo inteed qaaday what actions have you taken maxaad ficilo waa qaaday su'aalaha waan ka jawaabi doonaa insha Allah su'aalaha dib igu dhiga insha Allah waan ka jawaabi doonaa so actions maxaa qaaday su'aasha meesha taalo waxa weeyaan speakingku ama luqadda guud ahaanteed haddii caqabad ka haysto maxaad action qaaday you know waxaa la yiri maxay ahayd ficil la'aan loo cadaabaa muxuu ahay waxba ahayd bahal muu ahay ficil la'aan loo cadaabaa diinka muu ahay wax ficil la'aan loo cadaabaa mamadaas iga toosiibo mamadaas isoo qor qofkii garanayo hebel ficil la'aan loo cadaabaa ma ahayd mamadaas jeclaa inaad iga saxdaan doofaarka ficil la'aan loo cadaabaa ayuu ahaa ya doofaarku ficil la'aan loo cadaabaa so micnaheedu waxa weeyaan qofka cid xal kuu keeni karto ma jirto haddii aad dab lugta aad gashato ama dab aad dhex gasho kale cid kaa saari karto ma jirto unless adiga aad action qaado soo maha unless aad adiga action qaado so action horta waa laga maarmaan weeyaan actionku wuxuu noqon karaa wax walba uu noqon karaa inaad isku day samayso inaad isweydiiso horta maxaa u baahan tahay inaad xaliso luqadii ayaan u baahan inaan xaliyo sideen ku xalin karaa okay koorsooyin inaad daydayato inaad youtube-kii gasho oo aad dhegaysato inaad talooyin raadiso inaad dadkii experience lahaayoo kale la kaashato waa actions weeye so action haddii aadan qaadin oo aadan isku day aadan sameynin it's now time to do it taking action is what makes you win inaad ficil qaato waa waxa guusha ku keenayo cidna ficil kuuma qaadi karto cidna guul kuuma keeni karto cid ku ballan qaadi karto ma jirto in boqolkiiba boqol luqaddu ay ku bari karayso ama noloshu ay guul kaa siin karayso without you taking an action adigoon action qaadin qof walba waxbuu ku ballan qaadi karaa waa ku saacidi karaa qofka ama institution ayaa ku saacidi karo guidance kuu noqon karo laakiin ultimately cidda ficilka laga doonayo oo in tallaabo qaada laga doonayo waa adiga so isweydii
actions ka aad qaatay haddii aad action qaaday intay la egyihiin action kugu filan miyaa muhiimadda kalena oo aan ka hadlayna waxa weeyaan waxaa jiro guul walboo la gaaro luqadda oo keliya maaha formula ayay leedahay hadda luqadda waa kusoo hadal qaatay mooyaane si walbo nolosha mar walbo meel walbo aad waxaa aragti inaad guul ka gaartid career goals hadday ahaan lahaayeen educational goals iyo any other goal wax walbo aad ka damacsan tahay qaacido ama formula ayaa jirto la raaco formuladaasi haddii si fiican aad u qabsatid oo aad dhaqan gelisid guarantee weeyaan guarantee ma ahan xataa waa yeeli karaysa maaha waa guarantee 100% weeyaan inaad ka guulgaaraysid wax aad u jihaysatay formuladu marka intaan formuladu u gudbin waxaa jiro adiga you iyo commitment marka isu kaa soo raacaan commitment wax la dhaho aad garanaysaa filaya commitment waxa weeyaan inaad dhiiranaan tahay dadaal badan tahay oo howl fara badan oo imaanaysa juhdi badan aad bixinaysid adiga iyo dadaal iyo juhdi markay isu biirsadaan hal shay saddexaad ayaa ka maqan natiijada kaaga imaanaysa waxa weeyaan waa fatiig weeyaan waa daal weeyaan macnaheedu waxa weeyaan adigii waa dadaalowsaa laakiin waxbaa weli kaa maqan soo maha dadaalka markaa haddii uusan haysanin guidance uusan haysanin macnaheedu waxa weeyaan waa daal weeyaan fatiig waa daalaysaa haddii laakiin la helo adiga iyo structured guidance adiga lagu helo kadibna la helo guidance wax ego ama institution ama group ama course ama coach oo kale ku tababarayo kale haddii la helo oo commitment ka maqan yahay maxaa dhacayo no progress la'aan ayaa dhacayso guidance-ga waxba kuma tiri karo haddii aadan adiga iyo commitment aadan soo raacin marka formuladu waa sidan weeyaan waa in saddexdaba aad isku hesho you plus commitment plus structured guidance fiican marka hesho equal mastery ayada kaasa ma jiro qof hadda tusaale ahaan oo kale ciyaartoyda oo kale kubadda cagta dheesho kale waxay leeyihiin waxa la dhaho coaches ayay leeyihiin soo maha coaches ayay leeyihiin soo saar ayay leeyihiin coachka ardada ciyaartoyda oo dhan ayuu coach u yahay tababaraya ama dhiirigelinaya soo maha laakiin hal ciyaaryahan ama laba ciyaaryahan ayaa waxaa laga yaabaa inay noqdaan superstars noqdaan sida Cristiano Ronaldo oo kale ama Messi oo kale marka Cristiano Ronaldo inuu master gareeyo kubadda cagta micnaheedu ma ahan inuu ka guidance fiicna ama ka coach fiicnaay kuwa kale ee aanan guulaha badan gaarin laakiin hal mid bay kaga duwanayeen commitment ayuu kaga duwanayeen kan guulgaarid iyo jaceyl burning desire jaceyl aad iyo aad u baaxad weyn ayuu kaga duwanayeen marka qof walba marka effortka iyo juhdiga uu geliyo ayaa horta natiijada keenaya dii aad haysatid macalinka dunida ugu fiican balse aadan commitment aadan lahayn ama effort badan aadan bixinaynin natiijadaadu waxay ku dhamaanaysaa no progress ayay ku imaanaysaa ama waxay ku dhamaanaysaa average performance macnaha wax iska dhexdhexaad aan guul la sheegi kara aanan ahayn laakiin iska dhexdhexaad oo aanan the goat ka dhigay the goat maxaa la dhahaa the greatest maxaa laga soo gaabiyaa the greatest of all time somehow the greatest of all time so if you want to be the greatest of all time you have to have commitment with a clear structured guidance markaas waxaad helaysaa mastery ayaa gaaraysaa wax walbo aad markaasi aad waqti geliso aad ka master gareyn karaysaa luqaduna kama duwana luqaduna ayadana waxa weeyaan waa sidaas ayay kaaga baahan tahay good marka guushu waxaan soo sheegnay soo maaha commitment iyo adiga iyo waxaan kasoo hadalnay soo maaha guidance soo maaha ka waran haddii maanta commitment xoogan bixiyo oo saakinsaan shaqada u bilaabay wax akhris u bilaabay oo aan ilaa caawa aan wado balse beri aan soo laaban kari waayo what would happen hadhacayo
what would happen? What will happen? Nothing. Nothing will happen. So one huge step wouldn't take you far. Hal talaabo weyn oo hal mar aad qaato meel kuma geynayso soma hal talaabo weyn aad qaato maanta oo kiis iska waasho oo orodo oo wax walba aad samayso buwaag akhriso oo aad dhafarto natiijo kuma keenayso haddii aadan joogteynaynin hal isbuuc hal bil waxaasi natiijo ma keenayaan waa inaad long term muddo dheer aad wado si aad marka u joogteysid waxaa shardi ah inaad stepskaaga ama tallaabooyinkaagu ay ahaadaan short steps tallaabooyin yaryar maalin walba wax yaroo progress maalin walba tallaabo hore u qaado maalin walba tallaabo hore u qaado maalmaha qaar waa xajisa karaysa 3 maalin 5 maalin oo xiriir ayaa xajisa karaysa oo aadan casharadaada qaadan karin ama practice aadan samayn karin yeesan kula tagin marka waxa laga rabaa inaad soo laabatid oo aad meesheeda ka sii wado inta badan ardaydu waxaa ku dhacdo waxba iska yara qabanayo markaas baa hal isbuuc buu dib u dhac ku imaanayaa cashiradii waxba dib ama xanuun baa imaanayo ama mashquul kala imaanayo isbuuc marka cashiradii ma qaadanayo kadibna nafti ayaa jiidanaysa naftu waxaan dhahnay ma ogolo isbedelka ama waxyaabaha conversionkaada inay ka dhaxdid ma ogolo so markii ay jaanis kugu hesho oo labado maalin ay ku mashquuliso maalinta saddexaad haddii aadan soo cadaadinin oo aadan soo laabanin way kula tagaysaa fahmin marka bini aadan aan nahay mar walbo joogteyn ma samayn karno laakiin waa inaan ku dadaalnaa inaysan joogteyntu naga dhamanin inaysan joogteyntu naga dhamanin marka furaha guusha waa joogteynta formalada waan soo aragnay soo maaha commitment iyo structured guidance iyo adiga markaad heshaan haween mastery ayaa gaaraysaa masterygaasi marka si aad ku gaartid furaha aad u baahanta waxa weeyaan joogteen weeyaan fahanteen marka waxa weeyaan joogteentu waxa weeyaan waa furaha guusha weeyaan alright aan usoo gudubna marka kaalinteena marka intaas waxay ahayd hadal yar oo aan ugu talagalay inaan idinku dhiirigeliyo annagu kaalinteena marka waxay nahay annagu waxaan nahay structured guide ayaan ku nahay qofku hagay ayaan nahay kuma ballan qaadeeno inaan garanti kaama dheheno kuma dheheno luqadda ingiliishka haddii aad wax ka baro koorsooyinkooda dhamayso luqadda ingiliishka 100% waad ku hadli karaysaa never nobody can guarantee that for you qof ku ballan qaadi karto arrintaas ma jirto qofku ku hagi karaa institutions ku hagi karaa laakiin kuma ballan qaadi karo so marka annaga we are your guiding hand waxaan nahay we are your guiding hand gacantii ku hagi lahayd ayaan nahay so si aan kugu hagno waxaan ka soo hadalnay Soomaali consistency ayaan ka hadalnay waxaan ka soo hadalnay commitment ayaan ka soo hadalnay marka si aan consistency-ga aan u hubinay inaad mar walba consistency ugu dadaasho casharadeenna waxaan ka dhignay casharo enjoyable casharo aad ku raaxaysanaysid oo 20 daqiiqo maalintii ay ka badan tahay 20 minutes is more than enough every day filayaa 20 minutes ka badan inaan social media maalintii aan ku bixino benya hadda mobilkaaga haddaa fiiriso the well-being waxaa laga yaabaa 1 hour 2 hour ka badan inaan social media ka samaha marka haddii aad marka maalin walbo 20 daqiiqo waxa aad rabto inaad ka gaarto aad ku ispendi karayso waxaad sanad haddii aad wado waxaad gaaraysaa heer aad uga kaaftoonto inaad lagu turjumo I know 20 minutes too low way yartahay sooma aad bay u yartahay sooma I think that's all you need 20 minutes waxa kaliya aad u baahan tahay waa intaas weeyaan maxaa yeelay inta badan hadda contentiga markii la bixinayo kale institutionada markii contentiga ay bixinayaan tahay waxa la qaatay ama casharka la qaatay 20 minutes ma dhab laakiin there is too much fat around it laakiin waxa laga soo buuxiyay ama aad ku xiraarsan waxyaabo fara badan oo unnecessary ayaa anaga systemkeena waxaan meesha ka saarnay baahidii ahayd inaad book aad u baahatid book exercise book ama book or textbook inaad u baahatid ayaa gebi ahaanba meesha ka saaran all you need
is your mobile phone and internet connection. Mobile phone kaaga your internet connection in hesho. That's it. You 20 minutes amaan soo xaadirayso. 20 minutes marka micnaheedu ma ahan inaad 20 minutes oo kaliya aad ku qasbantahay inaad wax barato. You can do more than that. You can spend like 30 minutes or more than that, even 1 hour. It's up to you, whatever you can afford. Laakiin waxa aan rabno waxa weeyaan meesha ugu hooseysa qofka u yar oo qaban karo waa 20 daqiiqo. 20 daqiiqo waa kuugu mustaqbaliyaan. Asal iyo buuq kala ma jiro. Application-keena wax ka baro academy and support ama waxyaabo kale documentation kale ama meelo kale in laga taageero ma baahno. Asaga ayaa kugu filan oo exercise book asaga ayaa waa idin tusi doona demo time ayaa jiro. Asaga ayaa exercise book asaga ayaa ku noqonayo resources ka ku helo codadkii listening kii speaking kii practice kii conversations kii wixii dhan ay ku jiraan oo aad ka shaqaysanaysaa. Even you will not need a dictionary حتى uma baahanaysa application marka isticmaalaysa. Notebook aad wax ku qorato uma baahanaysid, book aad wax ka akhrisatid uma baahanaysid. So all you need is 20 minutes and you no books. Okay, meel walba aad fadhiso maqaayad haddii aad fadhiso haddii aad gurigaaga joogto mobilkaaga inaad soo bixisato intaad social media ku spend garay lahayd oo kale 20 minutes casharkaaga ku spend garay hal cashar laba cashar qaado qodobada jira dadana weytin ku jira weytin ka bawrka weytin iska suuda leedahay waa gruupka ku bixsamay wala soo duubaa leedahay. Alright, waa arday badan isku dayaysa inay soo gasho laakiin live-ku ka buuxsamay marka idinka nasiib ayaa leedihiin waana dhegeysanaysiin marka that shows that you're taking action faster than the other people. Inaad ka soo horqaadeen aad ka soo hormarteen soo maahan guushaad uga dhawaanaysa marka waa sidaas fiican. So if you feel let down by complicated and confusing learning system haddii aad ku wareertay ama aad isku soo dayday system ya kale inaad soo martay oo complicated oo confusing aad ku soo wareertay ina halkaagu waxa weeyaan oo wax ka bar academy. All you need application-kiina wax ka bar academy soo download garayso koorsooyinkeena aad testi garayso kadibna markii aad ku qanacdo kadibna aad safarkaaga luqadda aad bilaawdo. Alright, so waxaan isku barbar dhigaynaa wax ka bar academy iyo wax magaalka ka yaala ama online ama suuqa ka jiro ayaan isku barbar dhigaynaa kadibna demo time ayaan gudbaynaa insha Allah. So systemyada kale complicated systems weeyaan haddii inta badan telegram groups ayaa la isticmaalaa soo maaha ama website ayaa la isticmaalaa. Telegram group ma ahan platform loogu talagalay learning system ama waxbarasho loogu talagalay maaha waa communication platform weeyaan waa platform communication weeyaan. Groupkii baa wax soo dhigaysaa casharadii macalinkii ayaa soo dhigayo waad daawanaysaa inaad daawatay casharkaasi oo aad qaadatay in kale macalinkii ma ogaan karo. Quiz ama exercise aad ka shaqeyn kartid oo macalinkii aad usoo gudbin kartid oo la traagaray karo oo diiwaan la geli karo ma jiro. Waxaa laga yaabaa screenshot ka soo qaad in lagu dhaho groupka soo dhex dhig oo kadibna macalinkii uu feedback oo ku siiyo laakiin diiwaan ma la geli karo markii Telegram la joogo lama diiwaan geli karo oo maanta lama dhihi karo. Tusaale ahaan kale Yusuf Axmed oo kale progresskiisa halkee marayaan imise quiz ayuu ka shaqeeyay average gradekiisa waa imise ma lagu soo gudbi karto afaanteena filaya wax ka bar academy ayaa la dhahan gudoomiye. So ama waxaa la isticmaalaa nidaamyada kale isticmaalaan website-yo ayay isticmaalaan website-yo loo diyaarshay in wax lagu iibsho ayaa la isku dayaa in koorsooyin lagu gado koorsooyin lagu iibiyo. Markii aad website-ki gashid horta marka hore it's not easy to use si fudud looma isticmaali karo inaad ciwaan abuuratid ama aad iska diiwaan gelisid even hustle afaanteena filaya. Waxyaabaha kale oo markii aad casharadii aad gashidna mobilka uma diyaarsano muuqaalkii iyo sidii qaabka aad u gali lahayd aad ku wareegaysaa. It's very complicated. Laakiin wax ka baro very simple and easy to use weeyaan. Inuu simple and easy to use yahay waxaa cadeynayo sida fudud ee aad isaga diiwaan gelisay kow. Casharadan hadda maanta caawa way noo bilaawdeen waad arki doontaan sida loo isticmaalo. Waxaa kaloo platformyada kale aan kaga duwannahay inta badan platformyada kale marka aad u fiirisid oo kale casharadu aad bay u kooban yihiin. Waxaa arkaysaa institution dhan oo ku dhahayo
A1 ama levelka A1 oo kale ama levelka ugu horeeya luqadda Englishka oo kale CFR systemka marka la joogo 20 cashir kusoo koobay. It's impossible inaan 20 cashir oo macalinkii kusoo kooba level dhan loogu talagalay inuu 4 bilood socdo ama 3 bilood wax lamida socdo. ku qaarna structure ba ma lahan oo meel u socdo ama jiho ama structure oo ku socdo ama manhaj oo ku socdo ma jiraan. waxa kaloo jirto ama lagu qasbayaa pay before you see. lacagta bixi intaan waxba arkin ka hor. waa institution ma jiro hadda aan wax ka baro academy aan ka ahaynin ee u suurta gelinayo ardaygu inuu wixii arko oo qanco kadib lacagta bixi. marka ugu yaraato lacag diiwaangelin ayaa la iska hormaryaa fahmiya lacag diiwaangelin $5 diiwaangelin ama $2 diiwaangelin waxaan soo geliyaa ayaa lagu leeyahay soo tuur ama maxaa la dhahay lacagta bisha soo wada hormarin fahmiya pay before you see. Wakabar Academy, we have the most comprehensive course. Courses Somali loo diyaarsho waa mid ugu ballaaran. Mid ballaarneed ayaan ahay. In ka badan 1000 cashir ayaa ku jirto coursedeena special English programka. oo aanan xisaabta ku jirin koorsooyinka kale oo extra ah sida speaking oo kale iyo barnaamijyada kale aan ugu talagalay aan ku jirin. koorsada manhajka CFR oo kaliya from A1 to C1 in ka badan 1000 cashir ayaa ku jirto. Levelka ugu yar 250 cashir ayaa ku jirto. So it shows that the amount of effort we put in there. waqtiga iyo juhdiga la geliyay iyo sida loo diyaarshay waxa weeyaan waxay muujinaysaa in aad wax ka faa'iidin kartid. That's why we are so confident in giving you access for free first before you can try. So waxyaabaha kale oo aan kaga duwannahay waxa weeyaan real accountability. So xisaabtan joogto ah oo real ah. progresskaaga systemka ayuu noogu jira dhaqdhaqaaqa ardaygu sameynayo waa la arkayaa isbuuci 2 isbuuc kadib fariin ayaa lagu soo dirayaa WhatsApp-ka lagu leeyahay haddii aad casharadii joogto qaadan wayso maxaa kugu dhacay casharada ma qaadanaysid email ayaa kuu soo dhacayo oo lagu leeyahay oo aniga aan kuu soo dirayo aan ku leeyahay imisa cashara qaadata kala soo wadaag dad way ka soo jawaabaan laakiin ninkii ka soo jawaabi waayo oo it's up to them ase u taala ma fahmino laakiin anaga waan kuu fududeynay waana kuu diyaarinay wax walba dhan baahnay laakiin adiga ayaa laga rabaa inaad macalinkii la falgashid casharadii aad ka shaqaysid goals aad samaysid horay aad u socotid ayaa laga rabaa anagana intii aan ku buush gareyn karno waan ku buush gareynaynaa waan English to English waan ka dhigi karaa ustaad laakiin dad badan ayaa meesha ku jiro. The point of this video waxa weeyaan ujeedka aan ka leeyahay waxa weeyaan in dadku i fahmaan marka haddii aan English ku hadlo waxa weeyaan waxay noqonaysaa class toos ayay naga noqonaysaa marka dadku inay fahmaan ayaan u talagalay dad bilaaw ayaa jiro oo aan luqadda fahmaynin marka sidaas ogaan. So institutionada kale sidaan hore soo sheegay waxaad u baahan tahay buug inaad haysato buug inaad wadatona micnaheedu waxa weeyaan meel walba wax kuma baran karaysid noloshii mashquul weeyaan waa la ordayaa xafiisadii baa laga shaqeynayaa gurigii baa la joogaa meelo maqaayada ayaa la fadhiyaa timekaaga firaaqada marmar qaarkood adigoo maqaayad fadhiyo ama adigoo tusaalahaan oo kale isbitaal joogo oo kale oo firaaqa fiican hayo kale ama airportka joogo oo kale waqtigaada diyaaradda sugayo oo kale ayaad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysatid ma buug baad soo bixin kartaa ama gacanta ku sidi kartaa waa maya soo maaha maya anaga meesha waa ka saarnaa marka mobilkaaga mar walba sidataa jeebka ka soo baxso intii aad Facebook gali lahayd ama TikTok gali lahayd application-ka gal hal cashir 2 cashir ka 10 daqiiqo xataa hadaan qato hal quiz ka shaqeeyo muhiimaddu wax weeyaan inaad ku dhex jirto systemkeena dhan wuxuu u diyaarsan yahay inuu ardaygu sida bad camal luqadii uu dhex jiro inta uu ka guuleysanayo oo maalin walba quiz ka shaqeynayo exercise oo ka shaqeynayo vocabulary cusub baranayo challenges oo la kulmayo xalinayo quiz ku dhacaya oo isku dayaya dana uu ku dhacaya inuu saas ku socdo waxyaabaha aan kaga duwanaa waxa weeyaan inta badan waxaa la lahaa institutionada kale audio fileska ayaa lagu soo diraya ayagoo haystaan 200 codad ama codadkii casharada la socdeen oo kale lagu soo diraya mobilkaada ku download garaysa ayaan ku leeyahay wuxuu baad download garaysa laakiin biri marka casharadaada qaadanaysa casharkii 9aad baa joogtaa codkiisa ayaa rabtaa inaad dhageysatid waxaa ku qasbantaa marka inaad mobilka gallery-ga gasho baarto kii 9aad waa hustle weeyaan anaga wixii dhan application-keena ayaan kugu diyaarinay everything is in the app text audio quiz ama qoraal ha ahaadaan
oo buuggii ha ahaado wixii laga sharxay macalinku sharxay ama codadkii speaking ahay oo practice kala sameynaya listening ahay ama quiz-yadii ha ahaadaan ama dictionary area aad u baahanta adigoo cashirkii macalinka dhageysanayo oo kale ama qoraalka sheekada akhrinayo oo kale oo quiz-ka ka shaqeynayo ayaa waxaad u baahatay oo kale tusaale ahaan oo kale area micnihiis fahmi weysa ereyga dictionary baa meesha kugu diyaarsan waa furanaysaa waa gelinaysaa micnihi ay kuu soo saarayaan micnihi ay kuu soo saarayaan so you don't need to get out of the app inaad ka baxdid uma baahnid si aad wax u fahanto platform sidaas wax u sameeyay ma jiro and you will see it inshallah no speaking sessions or you pay extra institutionada hadda online ku shaqeeya iyo offline kaba kulli intooda badan ma lahan speaking sessions la sameeyo la qabto ma lahan haddii ay jiraan lacag extra dhiibaysa lacag extra laga rabaa inaad dhiibto oo lacagtii koorsada aad baxsatay speaking kuma helaysid waxaan arkayay meel oo la leeyahay $50 اسبوع laba jeer macalinku uu soo galayo iyo casharadii duubnaay that's too much waxa weeyaan waa lacag fara badan weeyaan shahaado waa bixinaa laakiin shahaadada pointiga maaha gudoomiye waa aqoonta weeyaan inaad wixii barato weeyaan so anagu waxaan qabanaa laba speaking session ayaan qabanaa isbuuc walba labadaas speaking arday walba oo koorsada ay active u tahay ayay u furan tahay inuu soo galo oo macalinka toos u arko haddii su'aalo uu qabiyo su'aalihii looga jawaabo asagana kalsoonidiisii iyo practice-kii aad sare ugu marka intaas ayaan ku kala duwannahay demo time ayaan gelaynaa sharxadda applicationka ayaan geli doonaa laakiin waxaan u gudbayaa offer huge offer discount weyn ayaan idin siinaynaa koorsada qiimaheeda hadda sidaad website-ka ama applicationka ku aragteen koorsada qiimaheeda sida hadda applicationka ku aragteen waa $20 bishii weeyaan $20 ka badan ayay istaahishaa run ahaantii markii la fiirsho resourceska iyo waxa ku jira waa idin tusi doonaa ka badan ayay istaahishaa laakiin $20 waxaa loogu jaangooyay baahida bulshada haysato ama duruufaha dhaqaale ama shaqada xaaladda Soomaaliya dhaqaalaheeda heerka maray ayaa lagu jaangooyay ka fahantina filaya marka saas ay tahayna weli munaasabadan maadaama ay kasoo qayb gasheen discount ayaan idin siinaynaa discount code marka waxa weeyaan waa N25 weeyaan waxay calaamadeeyaysa N25 weeyaan N24 ayaan leeyahay N24 wuxuu marka kaaga dhigayaa koodkaasi haddii aad isticmaasho wuxuu kaaga dhigayaa bishii inaad koorsada inaad qaadato $15 per month wax lagaa reebayana ma jirto wax lagaa reebayo ama lagu dhahayo ma jirto helaysid ma jiraan koorsooyinka fuulahan waa helaysaa speaking sessions waa helaysaa waxaa kaloo aan kusoo darnay this month bishaan oo keliya ayuu gaar u yahay koorso kale oo aan hadda dhow diyaarinay weli diyaarinteeda ay socoto oo spoken englishka aan ugu talagalnay ayaa gebi ahaanba free ku heli doontaa $20 bishii weeyaan koorsadaasi ayada kaligeed oo spoken englishka qofkii raba inuu speaking englishka si gaar ah xooga u saaro koorso loogu talagalay weeyaan $20 bishii ay tahay free ayaad ku helaysaa markaad koodkan isticmaashid laakiin waxaa xasuusnaanaysaa koodkani wuxuu expire noqonayaa 4 November ayuu expire noqonayaa so ka hor ayaa lagaa doonayaa inaad testingka sameysid aad koorsooyinkaada iyo cashiradaada aad tijaabiso kadibna aad ku qanacdo kadibna aad iska diiwaan geliso koodkiisa adigoo isticmaalaya markaa koodka isticmaashid bishii $15 ayay kuu noqonaysaa spoken englishkana waa lagu soo darayaa marka koodkani waxaad ka isticmaali karaysaa oo keliya applicationka dhexdiisa ayaad uga dhex gadan kartaa koorsada EVC ahaan kuma soo diri karaysa EVC ahaan haddii aad ku soo dirto $15 tiimku kaama yeelayaan $20 ay kaa rabaan waa inaad applicationka aad ku isticmaashid waa inaad applicationka wax ka baro academy aad ku dhex gadato weeyaan haddii aad dibad joogto applicationka kama iibsan kartid koorso waxaa ku khasbantaa marka inaad xawaalo soo mariso marka haddii aad dibad joogto aad xawaalo soo marinayso waxaa lagaa doonayaa marka inaad 3 bilood isa soo raaciso markay ugu yaraato ama 6 bilood ay soo raaciso haddii aad marka $15 ku dhufsan karaysaa laakiin ka hor
afarta bisha weeyaan lacagtaada inay soo gaarto waa idin sharxi doonaa insha allah waan sharxi doonaa qaabka loo galo haddii aad dibadda joogto maxaan dhahay waa inaad 3 bilood ama ka badan aad isa soo raaciso adigoo 15 ku dhufsanayo ka hor 14 bisha November markaa kadibna tiimku wuu tixgelin doonaa alright aan u gudubno marka demo time kuna gudubno hadda marka sidee loo isticmaalaa iyo su'aalahaas ayaan hadda ka wada jawaabi doonaa alright applicationka wax ka baro academy markaa soo gashid website-kana waa ka soo geli karaysaa wax ka baro academy waxaan filayaa horta marka hore inaad screenshot ka qaadateen codekani ma la qortay screenshot ma laga qaaday codeka ma la qortay N24 waa ma badan waa November 24 ayaan dhahnay boqolkiiba 4 ay discount ay siinayaan screenshot ka qaata ama qorta ma la isticmaali karo miya okay good Ahmed Baysi dibadda dadka jooga weeyaan waa xawaalada ka naqanaysa Baysi application-ka ma soo dhaxmari karayso aan u soo laabana marka application-ka wax ka baro academy marka aragtid horta marka hore nadiif weeyaan buuqii dhan ayaa laga saaray wax lagu buush gareynayo ama hadda wax iibso lagu dhahayo ma jirto marka soo gashid register ayaa taabanaysaa haddii aad cusub tahay weeyaan oo isdiiwaan gelinaysid meeshaan ayuu ku keenaya already idinka waa isdiiwaan geliseen meesha uma baahnidin inaad soo gashaan sign in ayaad galaysaa qof walba halkan ayuu ka galayaa koorsooyinkiisa si uu aragay sign in markaa gasho emailkaaga iyo passwordka isku diiwaan gelisay ayuu ku weydiinayaa halkan ayuu ku keenayaa dashboardkaaga waxaa kugu diyaarsan koorsooyinka ku diiwaan gashan ayaa kugu diyaarsan ama expire ha ahaadan ama enrolled ha ku ahaadan halkan ayuu kugu diyaarsan ama free ha ahaadan waxa doonaan ha ahaadan koorsooyinka halkan ayuu kugu diyaarsan hadda idinka waxay u badan tahay inaad dhammaantiin aad haysataan dadka u badan haystaan trialka midkan tijaabada beginner English CFR A1 waa 26 cashar ayaa ku jirta waa cashar sample weeyaan oo aan ugu talagalnay module-ka koowaad ama section-ka koowaad weeyaan casharada ku jira weeyaan haddii aadan beginner ahaynin oo advanced aad tahay ama intermediate aad tahay oo beginner-ka aad iska diiwaan gelisay ayadana problem ma lahan waad isxalin karaysaa sidee isku xalinaysaa qaybtan free gifts ka haddii aad gashidoo kale application-ka markaa ku laabato qaybtan free gifts ka haddii aad gashidoo kale waxaa ku jiro wax walbo aan offer gareyno ama si free aan ku bixino mas classes ayaa ku jiro oo sida seminaaro ayaa ku jiro oo aan duubnay waxaa ku jiro explorer programs ayaa ku jiro cashir yar yar oo tijaabe oo sample aan ugu talagalnay ayaa ku jiro oo A1 A2 iyo maxaa la dhahayaa master classes iyo weliba B1 oo tijaabe ayaa ku jiro B2 na waa soo gelin doonaa iyo C1 na waa soo gelin doonaa waxaa kaloo ku diyaarsan inaad imtixaan iska qaadi karto free assessment hadda free assessment gaan gasho imtixaan ayuu ku siinayaa imtixaankaas waa free weeyaan waa galaysaa kadibna haddii aad A1 u qalantid iyo hadda A2 u qalantid whatever level u qalantid waad testigaray kartaa marka levelka u qalantid ayaad galaysaa kadibna haddii lagu dhaho tusaale ahaan A1 u qalantaa A1 ayaa iska diiwaan gelinaysaa qaybta free explorer programka oo module-ka koowaad waad fiirinaysaa soo qanacaysa kadib markaasi A1 iyo full-ka ah usoo gudbaysaa hadda B1 oo qalantaa lagu dhaho B1 ayaa iska diiwaan gelinaysaa sidaas ayaa ku wadanaysaa seminaaradani haddii aad u baahan tahay ayadan markaad firaaqo haysid waad dhegeysan karaysaa waa seminaaro hore u dhacay weeyaan oo aan ugu talagalnay dadku inaan wax uga faa'iideyno oo free weeyaan waad ka faa'iideysan karaysaa marka halkaasi waa iska soo access garay kartaa marka application adiga aad iska dhex saacidi kartid weeyaan adiga imtixaan aad geli kartid adiga wax walba samaysan karaysid afaanteena filaya shaashadeeda soo ma aragtaan qofaa wuxuu yidhi black screen oo kaliya ayaan arkaa shaashadeeda ma aragtaan ani waa arkaa ha good waa la arkaa good aan usoo laabto marka dashboardki usoo laabto marka haddii lacala beginner levelku kaa diiwaan gashan yahay oo beginner levelkii aadan u baahnaynin imtixaan ayaa iska qaadaysaa levelada dhexe intermediate iyo pre-intermediate ayaa test garaynaysaa oo tijaabinaysaa marka see u galaysaa marka koorsadu halkan ayay ku saaran tahay enroll ayaa kuu qoran waa furanaysaa soo ma fahmin waa furanaysaa markaa furatid meeshan waa module-kii koowaad casharada ku jira ayaa halkan kugu diyaarsan oo sample ahaan wax lagaa reebayna ma jiraan wax lagaa qariyay ma jiraan module-kii koowaad weeyaan casharka aad ka shaqeysay ama aad ku baastay tick blue ayaa kuu saarmaysa casharkii kalene tick kuma saaran hadda kii koowaad saying your name waa ii saaran yahay tick ayaa ii saaran soo maaha
iyo exercise-kii 1.1 asagana waan ka shaqeeyay tig ay haysan casharkan ugu horeeya waxaa la socda laba exercise ayaa la socda soo maaha 1.1 iyo 1.2 quiz ayaa la socda kan waa quizkan marka waa blank space fill in the blank space meelaha bannaan buuxi weeyaan kadibna waxaan u gudbayaa casharkii labaad ayaa u gudbayaa lesson 2 LP what is your name what's your name kadib casharkii saddexaad vocabulary kadibna vocabulary-gana waxaa la socda quiz ayaa la socda 3.1 iyo 3.2 saas ayay ku soconaysaa marka quiz waan fiiri doonaa laakiin marka hore casharkii aan fiirino casharka labaad ayaa maanta diyaariyay waan furanayaa markaan furto halkan waxaa igu diyaarsan videogii macalinkii oo sharxayo casharadii waan dhegaysanayaa video si loo dhegaystay ma dhibeysa soo fahmin hoosna waxaa igu diyaarsan waxa uu macalinka sharxaya ama buuggii la sharxayay ayaa asagoo qoraal leh faahfaahsan igu diyaarsan meeshaan hoos ayuu igu diyaarsan haye sheekadan ayaan rabaa inaan dhegaysto marka waa inaan idin shida ayaan rabaa laakiin ma maqli karaysaan si aad u maqashaan wax yar ayaan bedelayaa marka casharkii macalinka wuu ii sharxay af Soomaali baa lagu sharxay waan dhageystay markaan dhageystay casharkii qoraalku waa kana waan aqristay ama haddii aan u baahanahay waa qortay kadibna codkii ayaan rabaa inaan dhegeysto halkan ayaan play karayaa Page 4. What's your name? Good. Listen. My name is David ma maqashaan horta ma la maqlaan codkaas good Carter. I'm American. I'm from San Francisco. My name is Mrs. Grant. My phone number is 549. good marka haddayna cashar dhegeysan uma joogno laakiin pointigu waa fahanteena filaya marka qof baa wuxuu weydiiyey dictionary-ga qaabkee loo galayaa good meeshaan anuu dhex joogo ereygaana micnihiisa garan waayo tusaale ahaan oo kale aba erey aan soo qabsado address oo kale micnihiisa garan waayo waa soo qabsanayaa halkan hoose haddii aan taabto meesha waxaa iisoo booday falaartan yarta haddaad arki kartaan dictionary ayaa iisoo boodaya soo maha dictionary-gani ayaa ereyga gashanaya anuu application-ka casharkii ka dhex bixin dhawaqiisana waa helaya haddii aad laptop isticmaalayo weeyaan haddii aad mobile isticmaalaysa dhaban kuuma shaqeynayo marka xunaa arrintaas laakiin micnihii ayaa kuu shaqeynaya define haddii aad taabatid oo kale it gives you the details ayuu ku siinaya sharaxaadii ayuu ku siinaya haddii aad erey kale u baahatid waad soo qaadanaysaa ama qoranaysaa ama waa gelinaysaa define ayaa leedahay kadibna wuu qeexaya halkan ayuu kugu qeexaya markaad ka maaranto waad iska gaabinaysaa meel ayaa isaga tuuraysaa waad aragtaan filaya falaartan yarta ayaad ka soo saaranaysaa haddana ka qarinaysaa cashirkan waa dhamaysta marka maxaa xigo waa daawaday macalinkii waa dhageystay waa ku ceestay talooyinka macalinka waa raacay maxaa xigo inaad badhankan taabto ma complete aan dhaho ma complete haddaan dhaho automatic wuxuu ii gudbinayaa videoga xigo ayuu ii gudbinayaa marka videoga xigana sidii oo kale weeyaan vocabulary weeyaan laakiin hadda waa meeshaan kugu wada diyaarsan yahay wixii dhan hadda marka dib aan u laabana marka koorsadeeda ayaan taabanaya markaan diyaar rabay inaan dib u laabto koorsada dib ugu laabto koorsada magaceeda ayaan taabsanaya cashirkii labaad maxaa dhacay tig ayaa ii fuushay soo maahan waa ii dhacaya marka waxaan rabaa marka cashirka qaabkaas ayaa loo qaadanaya waxaan rabaa marka inaan quizka qaabkee looga shaqeynaya note-ka qaabkee loo isticmaalaya good haye note-ka waa idin tusi doonaa note-ka marka kuwaan bilowga kuma jiro waa idin tusi doonaa alright fill in the blank space quizkan ayaan ka shaqeynaya quiz ayaan leeyahay kadibna waxaa meeshaan ujeedaan toban su-aalood ayaa meeshaan 10 fursadood ayaa haysataa 10 attempts 10 jeer ayaad isku dayi karaysaa 12 su-aalood ayaa ku jira 12kan su-aalood kama wada shaqeyn doona laakiin waa idin tusi doonaa quizka ayaa taabanaysaa hal mar haddii aan fura hadda waxaa iga dhama hal isku day ayaa iga dhamaaday marka waxaa lagu dhahay marka af Soomaali ayaa marka hore lagu sharxayo casharadan bilowga af Soomaali weeyaan kuwa dhexe laakiin af Soomaali waa laga dhaafaya fill in the blank space with the correct word ereyga ku habboon meeshaan geli waad soo baratay soo maa maxaa gelinaysaa my name is Yasir ayaa gelinaysaa saas ayaa ku wadaysaa my name is Walid let me know I am Yasir saas ayaa ku wadaysaa let me hadda waan iska boobsiinayaa si aan natiijadeeda u arko my name is Khadija waxyaabaha qaarna way qaldi doonaa waxyaabaha qaarna way sixi doonaa let me know waxyaabaha qaarna wuu iga qaldi doonaa
waxyaabaha qaarna way sheegi doonaa waa dhameeyay almost waxayna okay. My name is complete ayaa leeyahay kadibna waa baasay ayuu ii soo qoray wixii aan qalday halkan ayay ii yaalaan wixii aan saxin halkan ayay ii yaalaan fahanteen aan filaya marka mid aan qaladid correct answerka waa arkaysaa jawaabtii saxda ahayd lagaa reebo waa kana aniga laakiin wax qaldan ayaa meeshan ku qoray waa la iga diiday fahanteen aan filaya haddii aan rabo marka inaan mar kale isku dayo start quiz ayaa leeyahay haddii aan ka maarmane next lesson ayaa gudbaya isku dayayadeeda dhan halkan ayaa ka helaya isku dayada ama attempts oo dhan halkan ayay igu jiraan 65 ayaa laga doonayaa si aad ugu baasto haddii aan rabo marka casharkiina dib ugu laabto return to the lesson ayaan taabanayaa kadibna koorsadii ayaan u laabanayaa koorsadii marka u laabto waxaa arkaysaa kii blank space ka ahayd in uu tick ii saarmatay ayaa arkaysaa inuu tick ii saarmay ayaa arkaysaa waa fahanteen aan filaya marka waad qiimeysay waxaad u baahan tahay inaad iibsatid ayaa u baahan tahay koodka isticmaashid sidee yeelaysaa marka dalba koorsada ayaa taabanaysaa marka hoosna way ku qoran tahay hoosna way ku taalaa meesha hoosna way ku taalaa marka cashiradan kaa dhamaadaan inta ayaa galaysaa dalba koorsada ayaa taabanaysaa shaashada cusub ama si kale u furo uu ku furmaya kadibna haddii aad A1 ku qanacsantahay inaad kala jaanqaadid A1 ayaa ka wadanaysaa ma fahmino haddii kalena A2 ama B1 ayaad kala jaanqaadaysaa enroll now ayaa taabanaya hadda $20 ayaa ku qoran halkan ayuu keenayaa hal bil haddii aan doonayo haddii aan 3 bilood doonayo haddii 6 bilood haddii aan rabo inaan sanad shubto sameyn kara haddii dibadaha joogo kale inta badan 6 bilood 3 bilood ayay soo shubtaan maadaama xawaalad isticmaalayaan laakiin adiga maadaama Soomaaliya aad joogtid ETC ISAT iyo sahal aad isticmaalaysid bil waa isaga dhiibi karaysaa bishii waa $20 buy now ayaan leeyahay koodka ayaan rabaa inaan gasto discount ii gal kadibna waxay ii soo baxaan aragno hadda waxaa totalkayga igu taagan $20 ayaa igu taagan soo maaha $20 bish ayaa igu taagan halkan ayaa koodkayga ku qoranaya sorry shaashadeeda ma loo jeeda raali noqdaya present something else meel qaldan ayaan sharxaya raali noqday meel qaldan ayaan sharxaya wax yar aan dib u laabana marka cashiradii markaad fiirsatid oo dhamaysatid halkan ayaad taabanaysaa marka dalba koors markaad ku qanacdid wixii aad fiirsatid dalba koorsada ayaad taabanaysaa markaad taabato waxaa arkaysaa enroll now ayaa arkaysaa waa haddii aad u rabto inaad A1 ka bilowdo weeyaan haddii aad rabto inaad A2 ka bilowdo A2 ayaad tegaysaa asaba ku geynayo haddii kale B1 iyo wixii lamid enroll ayaa leedahay enroll markaad dhahdo defaultiga durationka waa hal bil weeyaan bishii waa $20 haddii aad jeceshahay inaad 3 bilood israacsato 3 bilood soo hormarsato waa ka haddii 6 bilood haddii aad sanad rabto saas ayaa isku hormarsan karaysaa ardada dibadaha joogo kale inta badan 3 bilood ilaa 6 bilood ayay soo raacsadaan xawaalad maadaama ay kusoo dirayaan kadibna halkaas ayay kasii wadaan haddii aad Soomaaliya joogto bil bishaada ayaad ku ekaysanaysaa $20 bisha ayaa kugu taagan bayna waxay leedahay kadibna wuxuu ku geenayaa halkan ayuu ku geenayaa xogtaada ayuu kuu soo gelinayaa marka waa inaad ciwaankii login aad ka tahay weeyaan haddaadan login ahayn halkan ayuu login kuu soo saaraya login ayaad gelinaysaa hadda waxay igu taagan $20 ayaa igu taagan $20 inaan yareeyo ayaan rabaa oo 15 aan ka dhigo sidee yeelayaa meeshaan bannaan ee coupon ee ku qoran tahay meeshaan ee coupon ku qoran tahay ayaa waxaan ku qorayaa N24 ku qorayaa bis waan sugayaa click basiinayo N24 marka ku qoran maxaa dhacay $5 ayaa iga harta soo maaha totalkayga wuxuu noqday $15 ayuu noqday $15kaas halkan ayaa taleefanka lacagta ka soo dirayo gelinaya ama SAD isticmaal ama sahal isticmaal ama EPC isticmaal leexal ayaa ka bilaabaysa 489 ayaa leedahay buy now markaa dhahdid taleefankaaga soo boodaya waxa kugu soo taagmayo lacagta ayaa kugu soo taagmayso oo $15 ayaa rabtaa inaad ganacsigan u dirtay ayaa lagu leeyahay ha ayaa taabanaysaa kadibna pin numberkaaga ayaa gelinaysaa $15 ayuu kaa goosanayaa automatic marka koorsada ay kuu furmaysaa markay koorsada kuu furmato marka halkuu ku geenayaa wuxuu ku keenayaa my account ayuu ku keenayaa koorsooyinka waaweynaa marka waa kuwaana koorsooyinka waaweynaa waa kuwaana CFR A1 Special English Program Foundational Level meeqa ku jirto casharada meeqa ku jirto ma fiirin kartaa ma arki kartaan 200 yaa arki karo levelka A1 meeqa ku jirto
246 cashir ayaa ku jirta. That shows you how intensive this course is. Kutusinaysaa koorsadu siday intensive u tahay. Levelka ugu yar weeyaan, waa levelka ugu yar. B1 waxaa arkaysaan B1 waxaa ku jiro 263 cashir ayaa ku jira. C1 hadda diyaarinta ayaa ku socoto weli already wuxuu marayaa 112 cashir ayuu marayaa. Marka koorsadii marka waxaa laga rabaa bil walbo inay enroll ku ahaato. Haddii expire ka tahay kuma shaqeynayso. Hadda kan A1 expire ayuu leeyahay, wuu iga dhacsan yahay. Ma geli karin. Laakiin midka enroll ka ah waa geli karaa. Marka waa taabanaya midkayga enroll ka ah A1 waa furanayaa. Markaan furto waxa ii soo baxayo cashiradii aan tijaabo ahaan u qaatay module-ka koowaad oo dhan waa kan ay soo wada baxayaan. Waxa kale oo ii soo raacayo wixii kale oo ka dambeeyo oo dhan module 1, module 2, module 3 sanay ku soconaysaa. Saan ayay ku soconaysaa. Fahmina? Waa kana cashir walba macalinku video-ga sharxayo qoraalkii oo raacsan codadkii meesha kuugu diyaarsan iyo wixii oo dhan ayaa meesha kuugu jira. Aqaanteena kale ah. Marka ardayga wuxuu weydiiyay sidee note-ka loo qaadanaya. Note-ka sidee loo qaadanaya. Inta badan markii levelkan A1 ka lagu jiro note badan uma baahnid, ardayda note uma baahno, meel note ma diyaarsano. Levelada dhexe aan dib ugu laabto marka. Markii exercise laga shaqeynayo kale note lagu soo raaciyo. Tusaale ahaan oo kale hadda C1 ama B1 aan fiirino. B1 enroll ayda B2 aan fiirino. Levelka B2 waa levelka upper intermediate weeyaan. Upper intermediate. Casharada practice-ka ayaa inta badan note-ka la socda. Cashir aan fiiriyo. Okay. Listening and speaking kan aan fiirino kan ugu jira note-ki. So cashirkan oo kale aan fiirino. Yes, waa kana. Marka aad u baahan tahay inaad note ka shaqeyso kale ama note ay gasho sidoo kale halkan ayuu ku soo galayaa. Hadda already note ayay u qoran note-kaygu waa save garaysan yahay, application-ka ayuu ku save garaysmayaa. Haddii aad application-ka iska deleted note-kaada wuu kaa baxayaa. Fafantina kale marka application aad haysatid halkan ayaa wixii Allah wixii aad note u baahan tahay ku qoranaysaa, save aad dhaxaysaa. Codadkina waa shidan karaysaa mar walba. Waxaa kaloo ayadana cajiib leh mararka qaarkood oo kale casharo practice ayaa jiro, speaking practice oo kale la sameynayo oo lagu leeyahay say the sentences out loud, filling in the gaps. Meelahan banaan buuxi adigoo jumlooyinkaas ku dhawaaqayo. Kadibna jawaabihii ayaad u baahan tahay inaad hesho kala tusaale meeshan banaan waxa kugu diyaarsan show answer ay kugu qoran tahay. Show answer ayaa furanaysaa ayagoo lagaaga shaqeeyo kana. Marka hore waxaa laga rabaa adiga inaad ka shaqeysid oo aad fahantid kula dhawaaqdid dhawaaqina halkan ka saxatid note-kaaga halkan ku qoratid kadibna jawaabihii aad halkan ka hubsato. Jawaabihii halkan aad ka hubsato. Wixii aad qaladayna aad ku laabatid. Casharada shadowga lagu sameynayo ma jiraan aad iyo aad shadow lagu sameynayo way jiraan bilow ilaa dhamaad aan fiirino marka aan raadino marka casharada shadowska. All right. Waxaan kaloo ka fiirin karaa aan xasuustaa inay ku jiraan horta leveladan dhexe oo dhan aad uga buuxaan. Levelka B1 oo kale aad bay uga buuxaan. ku dhamaan cashar walbo dhahayo speak out cashar walbo speaking ayaa shadow la socda. LP speaking, where are you from? Tanaa fiirin mar. Waxaa lagu dhahay what is your nationality? Ayaa lagu dhahay I'm Brazilian. Ina buuxsaa laga rabaa my nationality or I'm Brazilian. Ayaa la soma I'm Brazilian. Marka codka inta kugu jira marka shadowka ku sameeyay. Kadib meeshan ayaa soo dhex galaysaa I'm Brazilian ayaa leedahay kadibna asaga ayaa ka daba dhaqay. I live in San Diego. It's in the east coast of Brazil. Whatever other ayaa gelinaysaa. You know, Janice yar ayuu ku siinayaa, su'aal ayuu ku weydiinayaa, Janice ayuu ku siinayaa, Janice-kaas ayaa laga rabaa inaad ku dhawaaqdid oo aad gelisid, kadibna jawaabta ku siinayaa. I hope si fiican ayaa idin fahanteen. Waxaan gudbaynaa marka 10 minute oo Q&A ayaan gudbaynaa. Fadlan isku daya inaad qaybta Q&A-ga su'aalihiin aad ku soo qortaan. Lacagta bisha haddaan tuuro ma ku dhiganaya karaa hal level.
all right waxa ogaanaysa ustaad book documenti ma jiraan si marka hal mar marka sa u kala horeysiin ayaan uga jawaabaya qofka ugu horeeya wuxuu yiri documenti ma jiraa documenti ma fahmin waxa ula jeedo contentiga oo dhan application-ka ay ku jirtaa documenti ma fahmin marka wax walbaad u baahan tahay you will learn from the application lacagta bisha haddii aan tuuro ma ku dhigan karaa hal level haddii aan ahay qof hore u dhisan waxaa shardi ah levelka inaad ka gudubtid waxaa shardi ah inaad dhammaan all activitieskiisa ka shaqaysid haddii aad awoodo inaad casharadii aad muuqaaladii aad wada dhegaysato wiisyadii oo dhan aad ku baasto natiijo fiican aad keensato levelka xiga automatic waa u gudbi karaysa koorsooyinkeena ama casharadeennu wax limida ma saarno ardaygu intuu jecel yahay ayuu cashar qaadan karaa hal cashar laba cashar shan cashar lix cashar whatever aad jeceshahay ayaa qaadan karaysaa laakiin haddii aad isleedahay levelkayga wada yara sareeyaa hoos ayaan si fiican uga soo bilaabaya ama soo boobsiinaya ayadana problem ma lahan as long as you can do all the required activities waxyaabaha lagaaga baahan yahay dhan inaad soo dhamaysa ayaa laga lacagta goormaa la bixinaya lacagtu maanta oo koow ee wixii ka dambeeya waa bixin karaysaa discount-kani wuxuu ku egyahay 4 bisha ayuu ku egyahay 4 bisha wixii ka dambeeya waxaan groupkani waa xiri doonaa waxaan bilaabi doonaa difcadda kale ee bisha 15keeda bilaabaysa ayaan u howlgali doonaa marka 4 bisha haddii aragtid marka discount ayaa helaysaa haddii 4 bisha ay kula dhaaftana discount waa weynaysaa saas ogaada alright book pdf ma jira maya ma jiro book pdf ma jiro casharadooda halkan ayay ku wada diyaarsan yihiin study code-ka haddii aan isticmaalo oo inta uusan expire noqonin aan iibsado koorsada bilaha dambe 15 ha of course markaad code-kan discount-kan bishan aad ku iibsato $15 bishan waa lagu siinayaa spoken english-kana waa lagu siinayaa bilaha soo socdana bil walba $15 ayaa ku dhigan doontaa insha Allah bil walba $15 ayaa ku dhigan doontaa as long as you keep your consistency in mar walba haddii aad joogtayntaada ay soo wanaagsan tahay laakiin haddii aad kala joojiso oo 3 bilood 4 bilood aad maqnaato aad soo laabato wixii markaas taagan ayaa lagu dhaqmi doonaa laakiin haddii aad xiriir aad u wadayso waa $15 ayaa ku dhiganaysaa marnaba anaga ardadeenu waxa weeyaan discount ma diidno arday dadaalayo oo u socod fiican discount ma diidno laakiin ardayga caajislowga oo kale bilna la yahay bilna la imaanayo kale waxa laga yaabaa in lagu adkeeyo laga yaabaa alright tusaale haddii aan u qorsheeyo A1 iyo A2 1 month ma ku qaadan karaa I don't think inaad capacity-gaas leedahay ama awooddaasi aad leedahay inaad A1 iyo A2 waa in ka badan 500 oo cashir weeyaan 500 oo cashir inaad 1 month ku dhamayso markaad dan koorso uma baahna superhuman ayaad tahay ya fahmino laakiin casharadeenu limit ma saarno whatever you can do okay waan qaadan karaa soo maahan okay waa qaadan kartaa sundus $15 plus 20 miya maya waa $15 oo kaliya weeyaan bishii haddii aad code-kan isticmaasho marka idiima tusin qaybta koorsada aan spoken english-ka oo free-ga idinku siin doono haddii aad discount-kaasi ka faa'iidaysato waxay ku jirtaa qaybta paid programs-kan ayay ku jirtaa aan idin tuso mara maya waxaan ka arkaynaa account-kayga ayaan ka dhex arkayaa account-ka qaybtan spoken english mastery-ga 100 cashir ayaa ku jirta saad arki karaysaan 100 cashir ayaa ku jirayso waxaana lagu dhiganay loogu talagalay $20 wax kalena ma ku jiraan waa cashiro keyword speaking ayaa ku jira spoken english ayaa ku jiro oo aad iyo aad uga faa'iidaysanaysa tusaale haddaan fiirino kale waxaan fiirin karnaa practice conversation fillers oo kala fiirin karnaa jadido su'aalo conversation wada sheekaysiya ayaa ku jiraan oo codadkooda la socda oo codadkii la socda George plays the guitar doesn't he marka adiga waxa laga rabaa yes he does inaad dhahdid oo kadibna asagii aad ku jawaabo marka waa casharo badan oo speaking aan lagu talagalay waxa lagu leeyahay listen showing that you're listening marka qofka sheega ka koobinayso kor iyo waxay afar badan meeshan waxa lagu leeyahay listen as person A and respond as person A amal ku dhageyso oo su'aashan ayaa la weydiinaya kadibna su'aashan ku jawaab ayaa lagu leeyahay hadalkeeda ku jawaab ayaa lagu leeyahay dhageysanaysa horta ma maqlaysaa shaashada suuqa aldanta u maleynaa Let's get started. Okay, I'll weigh the sugar and you'll whisk the eggs. Okay,
I'll weigh the sugar and you whisk the eggs. Mhm. What did you think of the play? I kind of liked it, but it was a bit too long. I kind of liked it, but it was a bit long. You see? Saas ayaa maanta You shadow must kula be sameyn- disappointed with the result. saas ayaa maanta shadow kula sameyn kartaa. Marka waa course pure oo spoken English oo grammar waxna laguma baranayo. Free ayaad ku helaysaa haddaad discount ka isticmaashid. Bishan oo kaliya ayaan arrintan soo jeedinay. Waa kana markii la iibsanayo halkan ayay ku jirtaa. Markii la iibsanayo halkan ayay ku jirtaa. Waa $20 weeyaan. So $15 oo kaliya haddii aad maanta baxsato ama bisha inta afarta laga gaara baxsato koorsada special English ko dhammaystiran waa helaysaa. Koorsada waa lagu raaxaynaya. Warwali fahmaan filayaa. Meeqa bil? All right, meeqa bil ayay soconaysaa? Meeqa bil ayay soconaysaa? Niyo inta soconayso waxay ku xiran tahay sida boosiisa ay ku xiran tahay. Kuma dhahayno sanad ayay soconaysaa, 2 sano ay soconaysaa kuma dhahayno. Laakiin saan qiyaasno inta badan ardadu 3 bilood, 4 bilood, arday qaar 5 bilood ku dhameeya cala levelkii. Marka 4 level ku dhufo ama 5 level ku dhufo, marka aday sanad ay ka badan weeyaan. Waa qofkii normal ku soconaya weeyaan. Ustaad ومعقول أستاذ ومشغول سنة هذا سو قال أوكي كرر لنا قبرك وأيضا ضوبنا يا دبلوك دقيقة صدمتها فرمين هي فرمين 10 أوريدي وافرمين تاسنا كم هذا 10 وافرمين على هذا المكان كان سو قالنا هي فرمين هلا قالوا عوانة دين يوزر نيم كين باسورد كين استعماله ساين إن تاب صدر 10 تجاوز هالوياعو إن شاء الله جروب كأنه بلان كلن كان هل كان أيام جوجل كبيننا unless there is another question. Alright, وسؤال ما جرته ومحسنتين دمانتين بقول في بقول إن شاء الله ولا شقين وعن